waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دواada warka TV-ga Somali Channel studio magaalada Nairobi ayuu idinkaga imaanaya aniguna waa Saacadiye Garbe qodobada wararka daawan doontaana waxa kamid ah xukuumadda Soomaaliya qaybaha kala duwan ee bahda saxaafadda ayaa cambaaray dhaawacii saaki magaalada Muqdisho loogu geystay wariye Maxamed Maxamuud Timcado oo kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxay u codeeyeen qayb kamid ah qodobada xeer hoosaadka baarlamaanka Soomaaliya wafdi ka socda midowga Yurub iyo midowga Afrika ayaa gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose iyagoo halka kulamo kula yeeshay mas'uuliyiinta maamulka Jubba madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici iyo waliba gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Somaliland ayaa waxa ay ka qayb galeen magaaladaasi Berbera xaflad qalin jabina oo jaamacadda Golis ee Berbera u qabatay arday halkaasi ka qalin jabinaysay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Somaliland waxa uu markaa shahaadooyin guddoonsiiyay 150 arday oo ka qalin jabisay xirfado kala duwan ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso waxay soo bandhigeen dhalinyaro la sheegay inay shalay dhac ka geysteen suuqa dahabka ee magaalada Boosaaso guddiga magac baxay badbaadinta Puntland ayaa baaq ka soo saaray magaalada London iyagoo markaa fariin u diray ismida xildhibaanada aqoon-yahanada iyo waliba shacabka Puntland iyagoo sheegaya in ay taageeraan Cabdiwali Cali Gaasi bay yiraahdeen uu badbaadiyo Puntland sidoo kale daawadayaal waxa daawan doontaan xubinta todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa majaajileystaha weyn fanaanka Enbon Xirsi oo ku nool magaalada Hargeysa iyo waliba waayihiisa faneed qodobada iyo qodobo kale iyagoo faahfaahsan goordhow ay daawan doontaan daawadayaal balse haatan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada xukuumadda Soomaaliya qaybaha kala duwan ee bahda saxaafadda ayaa cambaaray dhaawacii saaka aroornimadii magaalada Muqdisho loogu geystay wariye Maxamed Maxamuud Timcado oo kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho haddaba dhaawaca wariyaha oo haatan lagu dabiibayo isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho sida xaaladiisa tahay waxa warbixinta magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Nimca Maxamed Bashiir wariye Maxamed Maxamuud Timcado oo kooxaha hubaysan ay ku dhaawaceen degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa dhaawiciisa la dhigay isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay caafimaadkiisa kula tacaalayaan dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalkaasi Duniya Cali Maxamed waa madaxa caafimaadka isbitaalka Madiine waxaana hadal ay siisay warbaahinta qaliinka wariyaha kadib ay sheegtay in dhaawiciisu uu yahay mid culus ayna suuragal tahay inuu noqdo paralysis maadaama ay ku dhaceen dhowr xabadood kuwaas oo ay qaarkood ay ka haleeleen qaybaha halis oo kamid ah jirkiisa wuxuu qabaa dhaawac xabado ay ka soo gaareen dhaawacaas oo aad iyo aad u culus oo la dhihi karo xaaladiisa aad ay maaragtay ee grave u tahan dhihi karnaa hadda laakiin dhaqaatiirta waxay muujinayaan in ilaa xad uu soo roonaan karo oo qofka bini'aadamka ilaahay nafsadiisa ay gacantiisa ku jirtaa laakiin waxa ku yaala xabado ilaa 6 xabadood gaaray qaybta oo xangulaha ay kaga taalo marka xaaladiisa hadda waa soo aragteen qaybta wuxuu yaalaa naaxinta waxa ku socda oxygen in hadda dareenkiisa qayb kamid ah sida qaybta oo dambe oo dhan uusan wax dareen lahayn oo dareen ahaan paraplegia wax la yiraahdo uu noqday walow ay xabadihiisa qoorta xitaa ay uga yaalaan oo uu noqon karo xitaa in maaragtay gacmaan ay uga darsoomaan laakiin hadda sida cad waxa waa lugihiisa dareen ay leeyihiin ma jirto qofka markuu paralysis yahay oo qaarkiisa dambe ama xibnihiisa
uu waayo adduunka meel wax looga qaban karo ma jirto laakiin qofka saboorti ahaan noloshiisa in la caawiyo agaasimaha TV-ga Universal xaruntiisa Muqdisho Cabdullaahi Xirsi iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta warbaahinta iyo suxufiyiin aad u fara badan oo soo buux dhaafiyay isbitaalka lagu dabiibayo wariye Maxamed Maxamuud Timcade ayaa iyaguna muujiyay dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin dhibaatada soo gaartay saaxiibkood. bismillaahi rahmaani rahiim saakay amar ayaa dhacay aroorihii abaarihii 7:30 to 8:30 walaalkeen Timcade ayaa lagu dhaawacay meesha la yiraahdo xaafadda Madiina oo barihan daba noqotay kawaankii saxafiyiinta aad iyo aad ayaan uga xunnahay dhibka gaarayna Ilaahay ha ka caafiyo sida annagana loo sheegay baabuur niman wata oo bistolada wata oo aan la garanayn ayaa xabadoona 6 xabadood waay sida dhaqaatiirtu ay sheegeen wararkuna ma filan garaysna weli wuxuu ku jiraa saarada mar labaad lagu celiyay waa u duceynaynaa hay'adaha amnigana ayagana wayna soo wargeliyeen wayna ku maqan yihiin wixii akhbaarada rabbigay caafimaadkiisa taamka ahaa oo aanu ku naqaanay Ilaahay horta ha u soo celiyo walaalkeeni nagu cuslaa agteeda qaaliga ka ahaa garabkayaga ahaa Maxamed Maxamuud Timcade Ilaahay horta caafimaadkiisa dib ha ugu soo celiyo hana ka kiciyo mid maanta maxaan ku raw sararta la saaran yahay horena waan u niri haddana waan leenahay waxa weeye waxa qasaaro qaba ninkii maanta maskiinkaas dhibaatada u geystay waayo Timcade nin qori ma ahayn nin qalin qaato ahaa dareenka bahda saxaafadda dhan ay qabto oo murugada ah wax badan ayaan u soo taagnayn haddii alla ku roon yahay bahda saxaafadda oo si xaq darra loo dilayo ayagoon waxay galabsadeen jirin oo la iska gumaadayo ujeeddada dhanna waxa waaye arag maqal afkana xiro sababta loo dilayo bahda saxaafadda walaalkeen Timcade Ilaahay caafimaad ha siiyo nin wax dilay haddii aan la dilin ee la iska sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaasay la dili waayo ayaa la yiri marka qof kasta way dilayaan cid ay dhaafayaan male ummadana Allah naga qabto tobanaan ku baa tagoogiyo ka go'an tiirka bawdada ee timaha ka badan intuu cadawgu tiray laxaadkii isbitaalada marka tagtaa tacajabaysaa sidaas ay xaaladdu maraysaa walaalkeen Timcade caafimaad Allah siiyo weerarka lagu dhaawacay wariye Timcade oo ay si aad uga xumaadeen dhammaanba dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa cambaaraysay xukuumadda Soomaaliya oo iyadoo hore u sheegtay inay xooga saari doonto ka hortagga dilalka wariyaasha Soomaaliyeed afayeenka xukuumadda federaalka Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo warbaahinta kula hadlay gudaha isbitaalka la dhigay wariyaha ayaa sida caadada waa mas'uuliyiinta dawladda waxa uu sheegay in dawladdu ay ku raad joogto dadkii geystay falka sharcigana la horkeeni doono dhawaan aad iyo aad aan uga xunnahay weerarkan gardarrada ah ee loo geystay saxafigan qaaliga nagu wadaa dhammaanteen oo idinka iyo anigaba aan wada garanayno danta keliya ee laga leeyahay weerarka noocan oo kale ahna waxaa weeye in lagu carqaladeeyo warbaahinta iyo xorriyaddeeda dadka in la cabsi geliyo in dadka sawir khaldan loo muujiyo oo ah in amni darro magaalada ay ka jirto iyadoo amniga guud ee magaalada iyo guud ahaan Soomaaliya oo aad iyo aad u soo hagaagayo dawladda Soomaaliya markasta waxay sii xoojin doontaa in si gaar ah ay xilka isaga saarto amniga in dadka sida maalaayacniga loo leynayo oo wariyaasha ay ka mid yihiin wax kasta oo amnigooda lagu sugi karo in xoogga la saaro deegaanka lagu dhaawacay wariyaha runtii waajib gaar ah ka saaran aan leenahay inay hubiyaan amniga wariyaasha Soomaaliyeed oo marar fara badan deegaankaas lagu ugaarsaday waxaan ka warhaynaa hadda waxay tahay in degmada ay dadaal xooggan ugu jirto sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dambiilayaashaas dhibaatada u geystay dhalinyarada maaragtay gaar ahaan saxafigan dhalinyarada ah Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Channel magaalada Muqdisho xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo codeeyay qaar kamid ah qodobada xeer hoosaadka ee baarlamaanka Soomaaliya sida faafinta warkaan oo magaalada Muqdisho inooga soo diray Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto halka Soomaali Channel uga soo warama kadib kulan ay yeesheen xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ay soo xaadireen 164 mudane isla markaana uu shir gudoominayay Professor Maxamed Sheikh Usmaan Jawaari oo ah gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay u codeeyeen qaar kamid ah qodobada xeer hoosaadka baarlamaanka oo ay wax ka bedel ku sameeyeen guddiga anshaxa iyo xeer hoosaadka baarlamaanka Professor Jawaari oo shir gudoominayay kulanka ayaa waxa uu gooreen ka warbixiyay ajandaha kulanka
28 heer hoosaadka haddaad haysataan waxa weeyaan boqolkiiba 50 oo hal lagu daray inay fadhido ayuu ku furmaya codaynta wuxuuna ku ansaxayaa codka kan hadda aan qaadayno boqolkiiba 50 oo hal lagu daray 139 cod heer hoosaadka sida idinku taalla weeyaan boqolkiiba 50 iyo hal dheeri ah ayuu ku gudbayaa ama lagu diidi karaa qodobkii la keeno ansaxna waxa weeye in codaynta la qaadi karo inay ugu yaraan fadhido boqolkiiba 50 iyo hal lagu daray marka 164 baad ku fadhidaan ugu yaraha loo baahnaan waa 139 marka codaynta waa la geli karaa hadduu gudbaayo haddii aad dib u dhiganaysaan idinka idin jirtaa xildhibaanada baarlamaanka oo la hordhigay qaar ka mid ah qodobada xeeroosaadka ee wax ka beddelka lagu sameeyay iyo qodobo cusub oo lagu soo kordhiyay ayaa waxa ay ansixiyeen qaar ka mid ah qodobadii wax ka beddelka lagu sameeyay halka qaar ka mid ah qodobada ay diideen oo la isku raacay in sidii horay u qornaa loo daayo codaynta oo ay xildhibaanada qodob u meelbarinayeen xeroosaadka ayaa waxaa natiijada ku dhawaaqay Professor Jawaari isagoona gabagabadii codsi u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxaa ka aamusay 9 waxaa diiday 15 waxaa ogolaatay 144 markuu ansaxay نظام عايز dhageysan oo ayaan qaadana si oo xilkisnimo بريتو أدي الله إدمو ساعات ما كردينيو طبعاً شغال وان بالله مركا بالله هينو أهاتو إن كل ما إنه سجالك إلا طبعاً عن سوق ورنو طبعاً عن هوش بالله وأنا أسأت شكو حريم عبد القادر علي حسين كورنتو سومالي channel مقالة مقدشو wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa dib ugu soo laabtay Somaliland isagoo markaana faahfaahin ka bixiyay natiijada kulan uu la yeeshay dhigiisa dalkaasi Ethiopia sida faahinta warkaan magaalada Hargeysa inooga soo diray Khalid Ibrahim Cabdi oo halka Somali Channel uga soo warama wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Biixi Yoonis oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka warbixiyay kulan uu magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia waxaana uu sheegay inay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin cilaaqaadka u dhaxeeya labada dal iyo wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya سأول صوت راح نكون مقنع إثيوبيا أديس أبابا دور شجاري وحلا كل ما تطرب بدن خاصة وجومهم سنة ديفيد برايم مينستر كمركز وزير الخارجية تدرس وحيابا عن مقاوضة هذا اللي وحاول بدنا أريمها كل السكيورتي وحيابا كل نبضة وحيابا كل أريمها السياسة وهذا هذا يسدي لبض وطن أولها علاقات كل أدوية هاي أيوة الشقين لهاين وحياة بدن بانوس لقرني وحنا نكفر أحسن هاي إني آد وكرسويين نبت قليبا نمشي كوضو هرمرك أي سوماليلاند سميسي إيو وانا كتشرا وطنك تاسو آد مهم وين إنه أتكيسنو نبدينا إيو كوني شتاقينا هذه أدبان وقول شرحنا إن مدة الصوماليلاند قوستي إني كوني ستاكتو إن أيو شيئا وراء الله حمرنا سيدا وقوة رمان أساسا نكوذا هذا الله wasiirku waxa uu kala u sheegay in qoraalka heshiiskii maamulidda hawada ee ay ku kala saxiixdaan dalka Turkiga uu u diray dawladda Soomaaliya waxaanu tilmaamay inay jawaab ka sugayaan si fiican oo inoogu dhacday arrinka hawada waa isla soo qaadnay si ay la socotaan warqad baan u qoray xamar waxaan qoray wasiirkii heshiiska in la saxiixday markii Turkiga la joogay waxaan ku lifaaqnay warqadii ay la saxiixdeen IKO-da jawaab aan ka sugaynaa dawladda Itoobiya iyo dawladda Ingiriiska iyo wadano badan oo noo dhaxaana waan u sheegnay waxay ballan ku qaadanayaan arrinkaas waxba ka jirin bay yiraahdeen hase yeeshee waa arrimahan ka wada hadli doona markaan soo nimaadno wada hadallada soo socda ee 8-9 Khalid Ibrahim Cabdi Somali Channel Hargeysa ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa soo bandhigay dhalinyaro la sheegay inay shil dhac u geysteen suuqa dahabka ee magaalada Boosaaso sida faahinta warkaan oo inoogu soo diray Maxamed Deeq Cabdalla oo Boosaaso warbixinta inooga soo diray taliska ciidanka booliiska gobolka Bari ayaa gudaha saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso ku soo bandhigay laba nin oo magacyadooda lagu kala sheegay Maxamed Foos Cartan iyo Cabdiraxmaan Cumar Dhaaye kuwaas oo dil iyo dhac ka geystay suuqa dahabka ee magaalada Boosaaso
labadan dhalinyaro ee maanta lagu soo bandhigay ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta degmada Boosaaso iyo qaar badan oo ka mid ah saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda Puntland. Labadan dhalinyaro waxay shalay gudaha suuqa Boosaaso gaar ahaan qaybta dahabka lagu iibiyo iyagoo wata qori ay ku dhiceen laba haween oo ka mid ah kuwa dahabka iibiya iyagoo sidoo kalena dhaawacay haweeney kale oo lagu magacaabi jiray Caasho Cali Shire oo markii dambe u geeriyootay dhaawacii soo gaaray. Taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Bari ahna kusimaha taliyaha gaashaanla dhexe Axmed Yuusuf Muuse ayaa ugu horeyn arrinkan ka hadlay. Waxa weeye ciidanku booliisku waa laga howlgalay waa la raadiyay ilaa iyo xal la raadinayay saaka 2 saac iyo 5 daqiiqo waa la qabtay gacanta lagu dhigay nimankii alaabta qayb ka mid ah waana xiran yihiin waa aragtaanin intaas waxa ku soo garsay ciidanka booliiska Puntland hasaatee waxa weeye Puntland waa markii ugu horreysay waxaan ka dhacan waa markii koowaad ka dhacan way markii koowaad ka dhacana waa la soo qabtay labadii nin qorigay iyo wixii ay siteen oo macnaha ay dhaceen oo qaateen waa la soo qabtay wixii ka dhiman insha Allah oo hantiye dhaceen insha Allah waa lagu daba jiraa. Duqa Boosaaso Xasan Cabdulla Xasan ayaa ducdiisa ku amaanay ciidamada ammaanka sida ay uga jawaabeen dhacdadii shalay ka dhacday suuqa magaalada Boosaaso. Waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa uguna bogaadinayaa ciidanka amniga ee degmada iyo gobolka hawshii fiicnayd oo xirfad lahayd oo ay ku soo qabteen dambiilayaasha aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaan kaloo mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka siisay qabashada iyo ku guuleysiga dambiilayaashaasi la soo qabto. Waxaan aad ugu faraxsanahay kalsooni fiicanna ku qabnaa in ciidanka Puntland gaar ahaan kuwa Boosaaso hadda jooga inay si fiican oo aad iyo aad aan oran karo kalsooni iyo isku halayn badan bay u leeyihiin amniga magaalada Boosaaso. Labada haweenka ee dhaca loo geystay oo lagu kala magacaabo Canab Jaamac Cabdullaahi iyo Saadiya Cabdi Diini ayaa sheegay in ragga la soo bandhigay yihiin dhaca iyo dilkaba geystay iyagoo ka warramay sida ay wax u dhaceen. marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo nagu guuleeyay in dadkaas nafteena naga gooyo maalkayga naga dhacay Ilaahay noo soo sakhiray in la soo qabto xilli waxay ahayd duhur iyo casar u dhaxaysa dadku ay rawaxeen meheradaha dumar iyo adigu dad kale oo rag ah oo iska bahalkii waa la joogay nimanka burcadaha noo yimid dabatana qoriyaan ugu qabteen aniga gabadhaas waxay naga dhaceen waxaan hanta haysanay marka ka bacid way gabadhan xabada ku dhuftay kii horeeyay baan hay xabada dhuunta laga saaro aniga iyo gabadh baa wada sheekaysanaynay gabadha kale oo ila socotaana waa dhinacayaga ay jiiftay dabadeeto ninkaas aan hansaab gareeyay kamarka hansaab gareeyay waa ninka qoriga sitay oo weyn ninka kalena bir buu la dhacay dhalooyinkii hadda dahabkii bay gurteen annagana wayna hansaab gareeyeen hawshoodii markay naga fushadeen bay gabdhihii waxay ku rideen dabxid bay ku fureen saasay gabadha kalena ku dhimatay. Halkan dhaca bareerka ee ka dhacay suuqa dahabka ee magaalada Boosaaso ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee suuqaasi laga geysto inta la ogyahay waxaana saraakiisha ammaanka Puntland ay wacad ku mareen ay ka hortagi doonaan tallaabo kasta oo amniga Puntland wax loogu dhimayo. Maxamed Deeq Cabdulla TV-ga caalamiga Somali Channel Boosaaso. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa magaalada Berbera ka qayb galay xaflad qalin jabin aheyd oo jaamacadda Berbera ee Golis u qabatay arday halkaasi ka qalin jabinay sida faahinta warkan oo magaalada Berbera inooga soo diray Maxamed Cabdullaahi soo fariiste. madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa maanta xaflad jaamacadda Golis ee Berbera u qabatay 58 arday oo jaamacaddaasi ka qalin jabiyay kaga qayb galay magaalada Berbera. xafladan ayaa waxaa iyaguna ka soo qayb galay wasiirada qorsheynta caafimaadka iyo wasiir dowlaha waxbarashada Soomaaliland gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo maamulka gobolka Saaxil iyo dekedda Berbera ayaa iyaguna xafladaasi ka soo qayb galay. jaamacadda Golis faraceeda Berbera oo ah jaamacaddii ugu horeysay ee laga hirgeliyo gobolkan Saaxil ayaa dufcadan maanta ka qalin jabisay noqonaysa tii labaad ee ka qalin jabisa waxaana 58 arday ee maanta qalin jabinaya ay barteen culumaha ganacsiga iyo caafimaadka waxaana ugu horeyn faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay ardaydan qalin jabinaysay iyo jaamacadda Golisba faraceeda Berbera gudoomiyaha jaamacadda Golis ee faraca Berbera xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire. mudanayaal iyo marweyn maanta waa maalin aad iyo aad u weyn oo ku suntan
taariikhda soo jireenka ah ee gobolka saaxil gaar ahaan magaalada berbera waa maalin ka turjumaysa himilooyinkii ay higsanayeen dadka gobolka saaxil waa guul kale oo maanta u soo hoyatay haddaan nahay gobolka saaxil mudanayaal iyo marooyin waxaan halkan isugu nimi inaan ku hambaliyayno ugu xafladayno 58 arday oo ka qalin jabiyay jaamacadda galis ee berbera oo noqonaya dufcaddii labaad una dhiganta dufcaddii tobnaad ee jaamacadaha galis ee Somaliland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay lana qaybsanayaa farxadda sharaf iyo maamuus iyo karaamada noo ah annaga ardayda qalinjabinaysa 58 ah farxaddooda waa farxaddeeda sharaftoodu waa sharafteeda waa sharafta qaranka waa sharafta gobolka waa sharafta midnimada runtii hadal badan uma bixin oo hadalka inta hadday waxaan u diin doonaa madaxweyne ku-xigeenka laba eray baan oran doonaa mid waxa weeye inaan hambalyeeyo kow ardayda maanta labada kulliyadood businesska iyo neersinka ka qalin jabisay jaamacadda golis ee magaalada berbera waxaan ku faraxsanahay inaan markii labaadna ka soo qayb galo waxaa maanta dhammaantiin farxad inoo ah oo ilaahay loogu mahadnaqa in ilaahayna maanta ina kala siiyey amaan joogna xafladan aadka u quruxda badan leh oo ay ku qalin jabinayaan 58 aqoon-yahan waxa aad iyo aad loogu farxo ilaahay loogu mahadnaqo marka koowaad hadalka intiisii badnayd madaxdii horeysay baa yidhi waxaan runtii munaasabadda xafladda awgeed aan hambalyada koowaad siinayaa 58 aqoon-yahan ee maanta loo dabaaldegayo tacliintoodii inay first degree-oodii ka qaateen maanta jaamacadda boolis aad iyo aad waxaan lehay hambalyo waxaa kaloo aan hambalyada siinayaa waalidiintii ku soo tabacday ilaa maalintii elementary ilaa maanta ama ilaa maalintii marxalad u tegey ku soo dadaalay ilaahay inuu suuro geliyey inay halka soo gaadhaan iyagana waxaan lehay hambalyaan lehay jasaakum allah khayr ilaahay beertii aad beerateen ilaahay midbaa dhashay idinka dhigo ha idinka dhigaan leedahay gudoomiyaha jaamacadda culumta badda ee magaalada berbera kabtaan cabdiraxmaan axmed ismaaciil iyo wasiiru dowlaha waxbarashada Somaliland kusimaha gudoomiyaha gobolka saaxil khadar cali cilmi iyo wasiirada qorsheynta iyo caafimaadka Somaliland oo iyaguna xafladda hadal ka soo jeediyay ayaa dhamaantood ardayda qalin jabinaysay ugu hambalyeeyay kuna dardaaray inay aqoonta ay barteen aanay halkaasi kaga hadhna ay sii wataan iyagoo dadkooga iyo dalkoogana uga faa'iideynaya maxamed cabdilaahi soo fadhiiste Somali Channel hotel Mansour ee magaalada Berbera wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Somaliland Maxamuud Axmed Barre ayaa waxa uu maanta shahaadooyin guddoonsiiyay ilaa 150 arday oo xirfado kala duwan ka qalin jabiyay sida faahinta warkan oo inoogu soo diray Faysal Maxamed Daahir wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Somaliland Maxamuud Axmed Barre Garaad ayaa maanta shahaadooyin guddoonsiiyay 150 arday oo ka qalin jabiyay xirfadaha kala duwan ee kala ah cunto karinta nadiifinta guryaha xanaaneynta carruurta iyo waliba gargaarka degdega ah kuwaas oo ay gacanta ku hayeen hay'adda wadaniga SOS iyo waliba Caritas isla markaana ay maalgelinaysa hay'adda caalamiga SBC waxaana ugu horeynba xafladani ka hadlay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Somaliland Maxamuud Axmed Barre Garaad kaas oo hambaliyay ardayda qalin jabisay dardaaranno xoogan oo soo jeediyay waxa kale oo halkan ka qaybgalayaasha barakacayaasha xaafadaha Aadan Suleymaan iyo Manhal iyo October waxaan ku guubaabinaya aan ku hambalyeynaya muddadii dheereed ee halkan ku sugnaydeen ee tababarka qaadateen sida sabirka muujiseen iyo waxbarashadiinii oo maanta xafladeeda aan fadhino waan ugu hambalyeynaya waxaan aad iyo aad horta maanta ugu faraxsanahay wasaaraddeeda waa hawsheedii waxaan meesha adeegid xirfaddu waa wasaaradda shaqada xirfad waxa kaloo aan aad ugu faraxsanahay waxaan ka mid ahay guddiga madaxweynuhu magacaabay bishii Juun ee loo magacaabay tahriibta si loo doojin lahaa
geesta kalena waxaa iyaguna munaasabadani ka hadlay agaasimaha hay'adda wadaniga ee SOS Maxamuud Aadan Xaaji Diiriye iyo waliba sarkaal sare oo ka socday hay'adda caalamiga ee Caritas kuwaasi oo ku dheeraaday ardaydani qalin jabisay iyo muhiimadda xirfadaha ay barteen. Mashruucan wuxuu koobsanayay tiradada oo 150 dhan ujeedadu waxay ahayd saacadda wasiir in dadkaas oo dhammaantood dumara in xirfad la baro xirfadaas aan oran karno waa xirfadii ugu horeysay ee waddankeena laga sameeyo intii iminka aynu lagu jiray kor u qaadida maaragtay dadka hay'adda Caritas iyo anjooga wadaniga ah ee SYS muddo 2 bilood waxay ku howlanaayeen sida ay u dhisi lahaayeen xirfad iyagoo siinaya 150 hablood ama 150 dumar oo da'yara oo ka kala yimi 3 xaafadood ee barakacayaasha ay degaan ee la kala yiraahdo Aadan Saleebaan Manhad iyo October. sidoo kalena waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday wasaaradaha waxbarashada dibadejinta arrimaha bulshada iyo waliba martisharaf kale oo badan ugu dambeyntiina waxaa halkaasi si rasmi ah shahaadooyinkii lagu gudoonsiiyey ardaydii qalin jabisay maanta Faysal Maxamed Daahir telefishinka caalamiga ee Somali Channel Burco. guddi la magac baxay badbaadinta Puntland ayaa baaq ay ka soo saareen magaalada London waxa ay markaa u direen isimada xildhibaanada aqoon-yahanada iyo waliba shacabka Puntland iyagoo sheegay inay taageeraan Cabdiwali Cali Gaasi bay yiraahdeen oo u badbaadiyo Puntland. waxa weey munaasabada tan waxay ku saabsan tahay maxaan ku radaa fariin aanu doonaynay inaanu u diro dadka yaga reer Puntland oo aanu jecel lahay si aanu u gaarsiino deegaanka yaga hooyo ee Puntland dareenka yaga aanu isleenahay maanta waxba ha ka hakranina dalkiina iyo dadkiina waa xil diin oo na saaran waa xil wadani oo na saaran inaanu dareenka yaga cabiro annagoo aanan cidna wax yeelayn cidna uga haybaysanayn ee ay naga tahay in aanu si kal iyo laab ah ugu heelino dadka yaga iyo deegaanka yaga si meesha aanu la jecel lahay u gaaro Puntland u heeliya xaqa ugu heeliya runta ugu heeliya dadka wax yaqaan ugu heeliya annagu halka waxaan u fadhinaa horeyna ugu fadhinay kuna dhawaaqnay cabdiweli ilaahay nabad ha ku gaarsiiyo Soomaaliya ilaahay ha ku soo bixiyo meesha loo doonayo ilaahay ka dhigo kii isu keena Puntland intayada halkan joogta iyo in badan oo reer London ah waxaanu wadaagnaa fikraddaasi waxa weeye Puntland waxaan la jecelnahay wanaag waxaan si aaminsanahay wanaagga aan la doonayno Puntland in uu ugu habboon yahay maanta inuu ku hogaansho ninka la yiraahdo Cabdiwali Maxamed Cali Gaas taas baa naga dhaxaysa waxaan xasuusinayaa shacbiga reer Puntland awoodu gacantooda ay ku jirtaa wala siyama gaar ahaan waxay ku jirtaa nimanka isimada waxaan idinka codsanaynaa inaad naftiinana badbaadisaan waddankaasna u hiilisaan wixii soo dhacayna wax ku qaybsataan isbeddelkana aad u hiilisaan berri ka maalinna xuja idinku tahay hadalkan waxaan hawada idinku marinaynaa inaynan berri ka maalin idna oran waxba nalooma sheegin antum shuhadaa fil ardi dadku waxay markhaati ka yihiin dhulkaali shacabka reer Puntland waxaan leeyahay mas'uuliyad baa idinka saaran isimadiinu dadka ay xulayaan gaar ahaan waxaan la hadlayaa marka shacabka degan Garowe caasimadeedii waa meesha la isugu imaanayo hadday isma noqoto hadday siyaasiyiin noqoto hadday tartan noqoto shacabka Garowe jooga waxaan rabaa in aan qalbigooda la gelinin tashwiish in aan la gelinin haddii ilaahay ku reeyo waxaan istaahilin inay dadka Puntland isku hayaan inay mathaali noqdaan oo tusaale ay u noqdaan reer Puntland iyo Soomaaliya oo dhan waxaan caawa halkan fariin cad uga dirayaa ciidamada Puntland oo ka kooban daraawiishta nabad sugidda iyo booliiska waxaad dharka u sidataan dareeska u qaateen darajada leedinku dhiibay waa dalkiina hooyo iyo dadkiina waxaan idinkula talinayaa caawa inay soo jeedin inaad ka madax banaanaataan siyaasadda iyo isbeddelka Puntland iyo doorashooyinkooda waad laydinku imaanayaa waana laydinka tagayaa waxaadna tihiin kuwa iyagu had iyo jeer joogaya wabillahi tawfiiq waxaan la hadlayaa gabdhaha reer Puntland iyo dadweynaha jooga Puntland oo dhan gaar ahaan Puntland gudaheeda inta joogta baan la hadlayaa waxaan kula hadlayaa waxaan idinku soo gudbinayaa in aad u dadaashiin isbeddelka
oo aad qayb ka noqotaan oo aad ilaalisaan nolosha iyo dhaqanka iyo diinta reer Puntland oo aad ilaashaan magacii afjireen aynu u soo lahayn waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha in ay dhexda u xirtaan siday u bedelaan nolosha reer Puntland qaybna ka qaataan baarlamaanka la doorto reer Puntland sugayaan oo bayaankan diraayay iyo balbaaqayga dhageysta bulshadan ay u dhamaatay badda qaar ku dhacayo beegsanaya tahriibka nin baxraansho u doorta waa gaasi mas-uuliyiinta maamulka degmada Yagoor ee gobolka Sool ayaa maanta kula gadoomay inta u dhaxeysa tuulooyinka Harwaraag iyo Hoftiro ee gobolkaasi Sool iyagoo halkaasina ay dhaawacyo ka soo gaareen dadkii la socday sida faahinta warkan oo inoogu soo dirayo Cabdikariin oo halka Soomaali Channel laga soo waramaa shilkan gaari ayaa wuxuu ka dhacay Hoftiro iyo Harwaraag inta u dhaxeysa iyadoo halkaasina uu kula qilimay gaari ay wateen mas-uuliyiinta degmada Yagoor ee ka tirsan xarunta gobolka Sool halkaasina uu dhaawac ka soo gaaray duqa degmada Yagoor إلا حسين محمود يتليها صليقة بوليسك إسلا دقمة داسي عالكاسو قاريقا يكوصا رايين مسؤوليين كترسن دقمة دو سعودال كتغي الديغان كييلا كترسن إسلا قبل كسول وحالكاس يقو قرمدي قار كميدا دادك الديغان كيغوري ويقو هالكاسي كسو غاضي أداو عنيا وحالوغو الضبيبة يا عسبتال كقودة مقالة اللاس عنو يضو آي عافيمات كودون وآدو في عني هاي قدرنا مخارك كيني حالدو واقصو رينيسا قاريو ولا دعي أبو قاريو آدو وبربوري aaduna wuxuu gaareen sheygu waa yar sanqalay oo saliidii ila ka daadatay xaaladooda caafimaadka warma waa soo reynaysaa markaad ugu tagteen goobta sidee ahaayeen aad bay liitay waa dhig baxeen duniyo aad u dhig baxay imse qof aad dhaawaca waxa dhaawaca saddex maxay kaliya kaliyihii hawayihii bidix idil xuseen xaji xamuud oo ah oo maayarkiya cali xuseen oo ah dumi saliga booliska cid kale ma la socotay laba nin oo kale la socday waxma Cabdikariin olol Soomaaliya Channel magaalada Laascano xaafad ku taal magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa weerar loogu geystay dhalinyaro Soomaaliyeed taasoo ay fuliyeen kooxo ku hubeysnaa bistoolado iyadoo halka lagu dhaawacay 4 kamid ah dhalinyaradaasi sida faahinta warkan oo dalka Sweden nooga soo diray Bashiir Salaad Ugaas oo halka Soomaali Channel laga soo waramaa kadib weerarkii habeen ka hor lagu qaaday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugnaa xaafadda lagu magacaabo Tenista ee ku taal magaalada Stockholm isla markaana ay ku dhaawacmeen ilaa 4 dhalinyaro Soomaaliyeed taasi oo ay fuliyeen kooxo hubeysani ayaa waxa shir degdeg ah oo arrintaasi looga arrinsanayay ku yeeshay xarunta lagu magacaabo Tenista Tarafa waalidiinta ku nool xaafadda xubno ka socday maamulka degmada iyo waliba saraakiisha ciidanka booliiska kulankani oo ahaa mid lagu lafagurayay qaabka ugu habboon ee looga hortagi karo falalkani iyo sidoo kale sidii lagu soo ogaan lahaa ciddii ka dambeysay falkani ayaa waxa sidoo kale isana uu ahaa mid lagu muujinayay sida looga xun yahay dhibaatooyinka soo gaaray qaar ka mid ah waalidiinta ay waxyeeladu ka soo gaartay carruurtooda kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka waalidiinta iyo macallimiinta ayaa waxa sidoo kale lagu soo qaatay dhibaatooyinka ka dhaca xaafadahani ay ku badan yihiin dadka ajaanibta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed iyadoona sidoo kale booliisku ay codsadeen in laga la shaqeeyo falalkani iyo waliba waxyaabaha kale ay uga baahan yihiin xaafadahani waxaa sidoo kale goobta ka hadlay waalidiintii ka soo qayb galay kulankani oo ku dhaliilay laamaha ammaanka wax ka qabasho la'aan falalkani iyagoona sidoo kale guud ahaan dadkii ka soo qayb galay ay sheegeen in loo baahan yahay in si wada jira arrintani la isaga kaashado wax ka qabashadeeda magacaygu waxa la yiraahdaa Muxubba Maxamed Faarax abo waxa waay horta xaafadan ereyadan aan deganahay oo isboonga Tenista la isku dhaca xaafadeenan dib weyn aan naga haysta dibka weyn aan naga haysta wuxuu yahay waxa way horta ciyaalka ilmo badan oo waxa jira xogaa macnaha ilmahan xogaa yeeng noqday ah marka ilmihii waxa la rabaa dhibaatay xaafadda ku hayaan xaafadda marka ilmihii xaafadda waxa la rabaa inay booliiska iyo macnaha dawladdi inay wax ka qabtaan marka dhibkan haysta waxa waaye xaafadda day wax ka dhacaan booliiska hadaa wacdid ma imaanayo مثلاً بعدين دعوين بدنا كدعاد لباب بالكار ميا ماشى دويلش لقو دعوعي ساسو كلا حبضون ننتو يمدو إسكريدي مركو إسكريدي أدق إلى أمريكا دتكي وكريدي ويكأردين وحبكم مدعين ujeedada caawa aan meeshan aan u imaanay waxay ahayd markii ugu horeysay inaan waalidiintii walaalaheen ahaa oo ay dhibka u soo gaaray inaan dareensiino inaan dhibka la qaybsano tan labaad oo ah wiilashii aan dhalnay dhaawac u soo gaaray oo xaaladahoodii qaarkood ay khatar ku jiraan inaan
u duceyno oo aan alla subxaana watacaala u barino aanan midda kalena ay tahay inaan cambaarayno wixii meesha ka dhacay oo maadaama ay tahay xaafadihii aan deganayn oo annaga aan u badnayn taas ayaa keentay inaan caawa meeshan isugu imaano oo aan u yeerno cid kasta oo ay su-aashaasi jawaabteeda aan isle waa ka heli kartaan waxaan ku dari lahaa waxay tahay arrintaas ilaahi subxaana watacaala waalidiintii ilmahaas la samir iyo imaan allah ka siiyo kullina hadeertaan waa dhaawac isbitaalka ku jiraan waxa hadeertaan mataqaanaa weli uu ka laabto waaye ma warbixin cad lagama hayo sida noqon doonto ilaahi subxaana watacaala caafimaad qayr qabaha siiyo haddii aan nahay reer Stockholm gaar ahaan xaafadaha kada runtii dhibaato badan baa na soo gaadha oo aysan caawa ahayn markii koobaad iyo markii labaad laakiin caawa waxaa u dambeeyey bay Soomaalidu is wareysataa 4 dhalinyaro ayaa runtii dhib ay soo gaadheen midna xaaladiisu aad iyo khatar aad ayay ku sugan tahay sida la sheegayo dhalinyaradii aan runtii fiirsan haynay ay ka mid yihiin oo aad iyo aad maaragtay aan u jeclayn inay ummadda qayb uga soo baxaan qaar ahaan aad baan u aqaanaa oo raggan soo korinay dugsiyada qur-aanka aan u haynay maaragtay dhowr iyo 10kii sano ay u dambeysay waxa aan warkayga ku soo gabagabayn lahaa ummadda Soomaaliyeed inaysan isu imanin markii dhibaato ay dhacdo ee ay ka hortagaan mar walba dhibaatada jirta intaysan imanin oo laga sheekaysto oo la isaga yimaado dhacdadani ka dhacday xaafadda Tenista ee ku taalla magaalada Stockholm oo kamid ah xaafadaha ay ku badan yihiin dadka Soomaaliyeed ayaa marka laga tago kaliya kulamadani waxa aan jirin wax qabad iyo ka hortag ku aadan maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badan ay yihiin gaar ahaan kuwa ku nool xaafadahani kuwa aan haysan shaqo Bashiir Salaad qaar ka tirsan beelaha gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweeyay awalka doorasho ee ka soconaysa gobolka Hiiraan sida faahinta warkan uu magaalada Beledweyne nooga soo diray Ismaan Aadan Careys oo halka Somali Channel uga soo warama kulankan ay isugu yimaadeen qaar ka tirsan beelaha dega gobolka Hiiraan ayaa waxay si buuxda ugu taageereen doorashada ka dhacaysa gobolka Hiiraan taasoo ay si buuxda beelahan u taageereen kulan ay ku yeesheen magaalada Beledweyne waa kuwan qaar ka tirsan beelaha oo ka hadlaya fikradda iyo sida ay u taageersan yihiin doorasho ka dhacda gobolka Hiiraan lagu soo doorto maamulkii gobolka Hiiraan oo Hiiraan iskale kuwa kalena waa maqayna inuu waa imaad doona muxuu ahaay markaan is wada aragnana waxaan aadi doonaa meeshii loo tilmaamay oo la yiri meeshaas ka bilaabo markaad taali isku wada noqotiin oo is afgaratiin oo wixii ku dhex jira aad hoos u dhaqdiin kadib meeshii warqada qoran moogta oo dastuur waa la soo waa step إذا مركز إسرائيل هذا أنا حلدي يرجدي ديجاكي حلدي سال دلسكم صورة بدرنا ما تسوى إسرائيل بيكوبات مركز سوى عرجنا أفر بيرود مياه وحوايا مركز ماله قال كنت الوين اللي ميلا لكن الوين كنت الوين أنت كمان واسألك الدورنا أنت كمان مركز إسرائيل هذا مرة بعد نسوى عرك الدورنا إن شاء الله sidaas kuwadayna meesha ku xigtaan u soo gudbi doona waqtiga iska yar jireeynaha la sheegayo iyo inta kaleba waxay xaq badan xaq darrena ma fiicno dadka islaamka dalweynaha 14 qabiila joogta ma galayin aniga waxaan tirsanaa in meel liiga dhacan tirsanaa waxaan rabaa in run la sheego وأنا بين اللي قدام بخير واحد لو هدي واحد يعني واحد دبقت أي تهي شلبي وحلا وتهسك وتها هذا يفهم لو سود هذا بلموني والله يقانا أنت يعني الدجن ودجان كوي والله يقانا أنت دجان كأهد هدي يعني أي واحد كيف سنيش أو واحد لو أقوليه سيتفضل وأقول قولش أنا قول خائمة معهن قول كابتن كجوجل كوايه حاجة بقولنا وافسوا رجلا إن شاء الله بلاجات بالله أنا وبركان هاي بيلها سينا في البلاد واي سد عمره مكاننا والله الشيخ هذا أفرتاس إنه يدخل خيانا أو سوى إمانة إنه يسوي مالان ودم جوال كات توسيو إن جوال كات دور شدي الوضع واقعي من الأولى كل واقعي الدولة لا أقبله لا يده يا رسولي وأنا أيدني وأنا أيدينا إن شاء الله. ندرس بقوة الحياة والدنيا أول كنا اللي يرد وهذا بين وشيء كان
asaguna kulli meeshuu odayaasha kadib uu soo geli doonaa insha allah saa qiyaasa ku soo dhawaada walaalayaal qabil maahan waa dhallinyaradii oo dhan ku kulansan mar haddii doorasho la dhaho waxaan u malaynaa inaan idiin bilownay 3 bisha Oktoobar marka waa jecelnahay inaad nagu daysataan waxa kaliya oo ummadda ku kala badbaadi karto waa in doorasho xalaal la suubiyo dadka degaankooda lagu saleeyo ummadda taasaa xaq ah oo xalaal ah marka xaaraantan hadda aan wadno in laga gudbo annaga waa taageersannahay waana rabnay in aad annaga aan nagu daba daysataan waana soo dhaweynaynaa dadkaan kuga sheegayna walaalahayna waa soo dhaweynaynaa mar walba hadaan ururka dhalinyarada heeliyo aan garab taaganahay waliba barnaamijyadan aan idin kala qayb qaadano inaan idinku dhiirigelino inaan wax badan idin kala qabanaa rabnaa Ismaan Aadan Carays TV-ga caalamiga Somali Channel Beledweyne kalfadhigii saddexaad ee golaha degmada Boorame oo socday muddo 20 maalmood ayaa maanta la soo gabagabeeyay sida faahinta warkaan magaalada Boorame inooga soo diray Cabdi Fataax Axmed oo halka Somali Channel uga soo warama gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmadan Boorama mudane Saleebaan Xasan Xadi ayaa maanta waxa uu faahfaahiyay qodobadii ka soo baxay kalfadhigii saddexaad ee golaha deegaanka ee degmadan Boorama oo maanta la soo gabagabeeyay kalfadhigii golaha deegaanka degmada Boorama oo bariyaha noo socday kaasoo aanu kaga hadlaynay arrimo khuseeya sidii ay u shaqayn lahaa golaha deegaanka iyo siyaasadihii waaxaha golaha oo ajandadiisa aanu intiisa badan gabagabeynay laba kamidana aan dib u dhiganay hawlaha oo nagu batay awgeed ajandayaasha oo hawsheedu batay awgeed qodobada aan soo saarnay waxay ahayd oo aan sixinay siyaasadihii waaxaha golaha deegaanka ay ku dhaqmi lahaayeen oon finalize garaynay waxa kale oo isla garanay qodobada ugu muhiimsan miisaaniyadda sidii loo kordhin lahaa waxa kale oo isla garanay sidii waax walba ama golaha deegaanka ay waax walba u garan lahayd shaqadeedii iyo nidaamkii ay u shaqayn lahayd runtii markii hore waxaad moodaysay golowda u cusbaa shaqooyin badan baa isku dhex jiray wax badan baa iskaga laaqnaa qaabka xataa ay u shaqaynayaan may kala gari wax laga yaabaa umay kala caddayn oo waax baa laga yaabaa inay waaxda kale shaqadeedii ay faragelinaysay ama xildhibaanadu midba uu iska gelay shaqo aanu lahayn waxyaabo soo finalize garay aan soo gabagabeynay bay ka mid ahayd si wanaagsan uu noogu dhamaaday sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmadan Boorama waxa uu ka hadlay halka ay marayaan howlaha bilicda magaaladan Boorama oo dawladda hoose ee degmadan Boorama ay gacanta ku hayso dihiinaaba goynaya wax qabadka iyo bilicdu sida ay u qabsoontay waxaan degmadii ugu horeysay ee bilowday ee hirgelisay go'aankii wareegtada ahaa ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha waana arkaysaa magaalada markaa wadooyinkeedu sida ay ahaan jireen waxaan ka qaban iyo imika isku mid maaha waxyaabaha qabsoomay ku muuqdaan bilicduna sideeda u socotaa waana wadnama mashaariic hirgashay ninka oranaya deegaanka feergaroonay malaha oo magaalada safarku yahay Cabdi Fataax Axmed Somali Channel magaalada Boorama waxaa maanta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug musharaxnimo uga dhawaaqay أحمد عباس أحمد وحنا حفلة وين هالكاسي لقو قبتي كسو قيب قلي قيبها كلا دوان إيه بالشدة هالكاسي كل دقان سيدا فاينتا وركانو مقالة قالكعيو نوغسو دري أحمد عباس أحمد أيام مانتا وحو مقالة قالكعيو ودواقي ينو يهي مشرح وتاقن حلك مدحتنا دولة بنتلان حلقا سو سعودا waxayna xafladan ka dhacday hoteelka Uulaaye ee ku yaala magaalada Gaalkacyo xafladii Axmed Cabaas Axmed uga dhawaaqaya musharaxnimadiisa ayaa waxa ka soo qayb galay nabadoono odayaal siyaasiyiin dhalinyaro iyo waliba qaar kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dawladda Puntland xilliga soo socda oo dhamaantoodna soo dhaweeyay musharaxnimadiisa una ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan waxaana uu horeyntii halkaasi ka hadlay musharax Axmed Cabaas Axmed waxaan hortiina ka naadinayaa muwaadiniin sharaf kale dadka shacabka Puntland iyo shacab gudaanba shacabka Soomaaliyeedna aan warbaahinta u marinayaa inaan u taagnahay mansabka madaxweynaha dawladda Puntland hadda iyo dan tabaabushaha doorashada waxa lagu gaari karaa natiijo la mahadiyo marka la oofiyo labada shardi ee soo socota shardiga koowaad waa ambaqaadida wadatashi looga goleeyahay in isku aragti laga noqdo waayihii Puntland soo martay gaar ahaan 5 sano ee ugu dhameysay arrimaha aan laga fursanayn in laga wada tashado lagana heshiiyo waxa ugu mudan qadiyada deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn shacabka deegaanadaas waa in loo fidiyo gogol lagaga baaraan degayo xaaladda ay ku sugan yihiin
iyo sababaha loo aanaynayo gogasha la fidinayo waa inay noqoto mid dhalin karta kalsooni taasoo ah shardiga keliya ee lagu soo noqlayn karo dareenkii midnimo ee Puntland la curatay bartamihii sanadkii 1998 waxay riyadaydu tahay inaan Soomaaliya ay gaarto in baarlamaankeedu u fariisto laba saf oo iska soo horjeeda oo kala ah safka markaa xukunka haya iyo safka mucaaradka kuwaas oo isqadarin iyo inay ku tartamaan wanaajinta danta guud u heelan waxaan kaloo xoreyn doonaa warbaahinta haddana way hor joogaan waxaan farayaa in qofka ay dabagalka ugu badan ku sameeyaan uu noqdo aniga haddii alla ii garto in la ii doorto mansabka aan hibanayo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon yaasiin cabdisamad musharaxa madaxweynaha injineer Cabbaas waxaan leenahay soo dhawow welcome nasiibkaaga ilaahay ha kugu garab galo haddii madaxtinimada Puntland adigana ay khayr kuu tahay annagana khayr noo tahay allah kuu sakhir haddii ay adiga dhib kuu tahay annagana dhib noo tahayna wax ka khayroon adigana allah ku siiya annagana mid khayr qaba allah noo keen musharaxiintoo dhanna saasaan leeyahay cabdiraxmaan cabdulaahi cali telefishinka caalamiga ee Somali Channel gaalkacyo kun la isugu yimaadeen haween ku dhaqan gobolka Hiiraan ayaa waxay ku baaqeen in la qabto doorashada ururka haweenka ee gobolkaasi Ismaan Aadan Caras ayaa markale warbixinta Beledweyne ka soo diray kulankan ay isugu yimaadeen ka tirsan haweenka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin doorashada iminka ka soconaysa gobolka Hiiraan balse doorashada ururka haweenka gobolka Hiiraan ay dhici doonto markii ay soo gabagabowdo tan maamulka gobolka Hiiraan waa kuwan qaar ka tirsan haweenka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee kulankaas ku yeeshay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan oo ay gabdhaha beesha xawaal uga tashanayeen aayahooda maadaama in muddo ah la kala maqnaay wadanka xalaada jira awgiis ilaahay hadduu sukaayo keenay alxamdulilah shan ilaa daraad waa isku imaanaynay waxaan ku heshiinay ilaa laga gaarayo doorasho in 12 xubnood aan iska soo qabanay oo ka tirsan ku dhan yihiin beelaha beesha xawaale gabdhahooda beel maqan way jirtaa laakiin wax problem mana walaalahan waa kama maarno waana doonaynaa waana doori doonaa wax weyn naguma dhex jiraan laakiin 12 beelood oo ay xawaale ka koobnaayeen 12 ka mid way joogtaa insha Allah ilaahay abshirtaana waafajiyo 12kaasna waxaan u xulnay doorashada jirta hadda oo mid taagan oo lagu xulaa kowsalada ilaa maamul heer gobol heer degmo inay gabdhuhu gobol u noqdaan garabkooda taagnaadaan ragga maadaama islaayahay sanadkan waa sanadkii xaq xawaalo oo banaanka yimid maadaama doorasho ay noqotay arrintii wax badan laakiin la soo magacaabi jiray dad 6 bilood oo ku meel gaar iyo waxyaabo la mid ah waxaan ilaahay ka rajeynayaa in ay ku dhamaato sida ilaahay uu hadda waafajiyo uga dhawaajiyo oo ah in doorasho la qabto in muddo ah ayna is arkin ayaa waxaa loogu talagalay shirkan in lagu soo dhaweeyo in beesha xawaadle ay isgacan qabsadaan haweenkooda ay noqdaan kuwa hal mid ah waa xawaadle midda kale aan wax dhibaato ay jirin waxay ka kooban yihiin 12ka beesha xawaadle ay ka kooban tahay ay ka kooban yihiin haweenkan wax maqan waa jiraan laakiin waa soo dhameystirmi doonaan laakiin xoogooda inta badan way joogtaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan doonaynaa oo u samaysana shirkan in aan saadaasha socoto doorashooyinka socdo nabadeenta socoto si aan uga qayb qaadano oo qayb libaax aan uga qaadano annaga haddaan nahay haweenka beesha xawaadle noqono kuwa hago dadka haysta ama dhibaatooyinka carqaladaha ay dhex yaalaan Ismaan Aadan Caras TV-ga caalamiga Somali Channel Beledweyne jaamacadda Aldi ee xarunteeda magaalada Cabudwaaq ayaa waxa ay 100 neef oo ari ah u qaybiyeen qoysas danyar ah oo ku nool degmooyinkaasi sida faafinta warkan uu Cabudwaaq inooga soo dirayo Maxamed Salaad jimciyadda Aldiya Welfare Organization xaruntooda ay ku leeyihiin magaalada Cabudwaaq ayaa waxa ay deeq ari ah oo loogu talagalay udxiyada ay ka qaybiyeen magaalooyinka Cabudwaaq Balanballe iyo Dhabaad taasoo ay wakiil uga ahaayeen hay'adaha IHAD iyo SED oo ka dhisan wadanka Jarmalka 7 ka mid ah ay dibiyada ay ku nool yihiin qoysaska barakacayaasha ah ee magaalada Cabudwaaq ayaa ariga la gaarsiiyay sidoo waa kaamka Balkarasle waxa hay'adda labadan hay'adood iskaashanayaan loo keeneen arigan xoolahan meesha yaala oo ulxiyada hadda waan kala wareegnay waa mahadsantihiin
halkan saakay waxaan ku bixinaa ari udxiyo ah oo ay ku deeqday ama ay soo aruuriyeen dadka muslimiinta Soomaaliyeed ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee fadhigeeda Jarmalka ayagoo ka fulinaya ama kaashanaya hay'adda IHAD ee fadhigeeda Jarmalka yahay ayaduna waxay sii kaasheen yani wakiilatay jamciyadda khayriga ee caabuda ka dhisan ee la yiraahdo Adiyaa ayaa fulinaysa barnaamijkan xoolo badan ayaa la bixinaya insha Allah ta'ala oo la bixiyay kaamanka ayaan u qaybinaynay marka kaamkan waa kaamka Laandheer ee degmada caabuda waxaa jooga dad sabool ah oo barakacayaal oo kalena qoysas danyar masaakiin ah oo ku nool degmooyinka Balanballe iyo Dabad ayaa iyaguna jamciyadda Adiyaa ay gaarsiisay deeqdan ariga ah ee ka timid hay'adaha IHAD iyo SAID oo ka dhisan wadanka Jarmalka. waxaan ku mahadcelinaynaa Ilaahay marka koobaad marka xiga waxaan u mahadcelinaynaa dadkii soo gaarsiiyay xoolaha udxiyada degmada Balanballe dadkiisa danyarta ayagii baan u qaadnay waan u qaybinaynaa taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ilaahay ayaan marka hore ku mahadinaynaa ilaahay ayaa mahad iskale maanta halkan waxaan ku qabanay naxrigii iyo udxiyadii iyo hawshii ayaan ku galnay ilaahay subhanahu qaadira mahadiisa ka bacdi waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda ururka SAID hay'adda IHAD Maxamed Salaad Somali Channel Caabud Waaq gudaha daawadeen inta ayaan ku soo gabagabeynaa warkeena TV-ga Somali Channel studio magaalada Nairobi ayuu idinkaga imaanayay aniguna waa Saadiya Cabdiraxmaan Cabdulla Garbe tan iyo kulan dambe wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh